الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لما وحن السلام يوم الصوماليات ملك استيج جوجتو دلية دبد وأنكم السلام يا سلامة السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعد وحن السلام يوم الصومالي لان ملك استيج جوجتو وأنكم السلام يا سلامة السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعد ما أنت الشركة اللي شرايدو حكوا سالسين دولة الصومالي لان والسيركة ورشين تقرنك الصومالي لان oo yiri bajadadii ayaanu waxbaan u qabanay gobolada oo halka ka sheekeeyay marka ugu horeeyo waxaan oran lahaa bal inaan kan yare wasiirkan qorsheynta qaranka waxa la weydiisan mashruuci xunba weyne ee gobolka Maroodijeex ee Hargeysa ee biyo gelinta ahaa ee 350 milyan ahaa bal meeshu maraha la geey hal weydiiyo oo mashruucaas meeshu qabadsiiyay taa hal weydiiyo taas waa taa talabaad bal dekadii berbera iyo DB Wall iyo dekadan budgetkeedii iyadana hal weydiiyo ila waa wasiirkii qorsheynta qaranka taasina waa taa airportkii berbera inuu rahman yahay iyo in la iibiyay isagana hal weydiiyo markuu ka hadlayo uu leeyahay dhaqaale bajad marka waxa isaga u taala inankaas bal inuu ka magaalada caasimadda uu ku nool yahay inuu ka sheekeeyo waxa kale oo laga doonaya inuu ka hadlo musiibadii ku dhacday meesha awdal ee ummadda dal iyo dibad adduunyada gargaarkii loo geystay ummadda baabaaday ee aan wali waxba la gaarsiin bal bajadkeeda ka sheekeeyo taasi waa taa talabaad dawladda waxa dadku ku fogaadeen caari baxay waa la wada baxaya marka dina bixiyo ciidamada qaranka ee saraakiish madaxda 47 beeshaada siisay 26 habar jecel siisay 10 garxaji siisay 8 arab siisay midna ayuub siisay 13 harti siisay 12 samaroon siisay midna akiisha siisay ilaahay baan kugu dhaariyay soo in la kala tago ugu ma tala gelin inta beeshiinu heshay iyo inta ummadda Soomaaliland heshay ayay isleeg inta habar shacab heshay iyo inta isaaqa kala helayna way isleegi marka dalka aad raadinaysaa iyo dadka aad raadinaysaa waa kuwee taas waa taa talabaad gobolkan Sanaag wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo inka lagu yiraahdo ina awsiid iyo inka yara asli maydi waxaanay ka wadaan ma ka sheekeynayaan iyaguna waanu aragnaa nimanka imika shirka jarayd halka ku qabtay cidda wadayna waanu garanaynaa masaakiinta imika la heshiisiyay ee 3 sanadood la isku dirayay dad islaam ah hadaatiin dhiigooda uga taga ee ka baayac mushtarinaysa dhiiga foos miriya maxamed kaahino 3 jeer baa qabateen waxba waa qaban weydeen wadaadaa yimi dad culimaa baa timi waxa timi cuqaal waa la heshiisiyay maxaad minka kaga wareegaysaa marka waxaan idin lahaa faraha kala baxa ceelaf weyn iyo dhibaatadana ka wadaan caare iska daaye Soomaaliland ciidamada yar ee qaranka ah ee lagu maaweelinayo xuduud baa la soo xidhaya xuduud la xidhayaana aanay jirin waxaan oran lahaa guriyihiinni baa cidlaahay qoryaha waa la idinku qarameeyo reerihiinni baa leh nin walba gurigiinni dib ugu soo noqo waxaan u sheegi lahaa waliba ummadda hartiyeed in dhiiga lagala yimaado oo isaaqow nimanka lagu yiraahdo Jibriil Abukar iyo habar jecel iskaga soo baxay guriyaha hartiyeed taasina waa taa waxa timi Ethiopia maamulka Ethiopia yime kalarka shanaad Soomaalidu waxay ku hadaaqdaa Allah nin wanaagsan baa yimiyo wuxuu ibu bedelay calankii buu bedelay waxa la wax isbedelay ma jiraan ummad dhan waxaan wadbaaq baanu idin soo diray waanu idin la talina waxaanu waa shir qaran isugu yeero Soomaalida Ethiopia qof walba xaqiisa la siiyo deegaan walba xaqiisa la siiyo halkana soo orodeeno ummad dhan oo degta ilaa iyo Fayaan Biiro ilaa iyo meesha lagu yiraahdo Booda Dheere ummadda degtay xaqeedii meey haddaba adna buugtaadii dib ugu noqo Soomaali baa tahay cuqubada Hargeysa ka socdaad ma aad wadaaye waxaan ku oran lahaa la taliyayaal wanaagsan samayso ummadda Soomaaliyeed ee Ethiopia degta xaqoodii meel hal wada keeno
waxa aad samaystay wax ka soconaya ma jiraan laga yaabo inay inta aan ay yara qabowsan tahay laakiin dagaalku waa bilaamaya ogow sidoo ku bilaamaya waa xaqdarada ummadan in xaqdaradeeda ma qaadanayso taasina waa taa Soomaali weyn baa timi farmaajoy horena waan kuula hadlay nimankan sangaluuriyada ay ku jira wadanka intaanay ku faafin ka saar intaanay ku faafin waxaan idinkaga tagayaa wasalaam markaa waxaan oran lahaa waxaan oran kala oran midka sorry midda idinka ilaawo afayeenka cud baa mala hadlay oo wuxuu eedeeyay wadani markaasuu yidhi jamad bay abuuraya horta ilaahay baa idinku dhaariyay cud faysal baanu aragnay kanuu kaga sii tagay afayeennimadii madaxtooyadan madaxa lagu sito riigii la leeyahay burcaale madaxtooyada madaxa lagu sito geliye haddaanu idiin sheegaynaa ummaddani way soo jeesatay ummad la isku darayana maaha 1995 bay idiin dhammaatay intaaba waanu daba soconnay dadkan iyo dhibaatadooda kana hadhi mayna qaylada mid kalaan se ku daraya ummadda Soomaali waxaan u mahad celinayaa maanta cuqaal iyo indheer garad iyo siyaasiyiin iyo culimo awdiin gobolka Togdheer ka hadlay oo ku baaqay iyagoo midaysan inay yihiin gobolka Togdheer ee magaalada Burco